بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلaahi subxaanahu wa tacaala cibaadada allah inaga aqbalo, kuwii soonkoodu uu maqbuul noqday, loogu dembi dhaafay, ilaahayna naarta kaga xoreeyey allah inagu daro. maanta waxaan soomanahay sanadkan 29. caawa inay ciid noqoto way dhici kartaa, in berri ay soonka 30 buuxan noqoto la dhammaystirana waa dhici kartaa. qofka muslimka ah bisha ramadaan ilaahay wuxuu ugu kaalmeeyey shayaadiintii dhibka badnayd oo la xirxiray, laakiin markii bishu ay dhalato shawaal iyo ciidu dhalato waa la soo fasaxaya. 3 arrimood baa ugu muhiimsan qofka muslimka waxa laga doonayo markii ay bisha ramadaan dhammaato. waxa koobaad waa inuu fuliyo waajibkii bixinta zakaatulfitriga ahaa oo laga bixinaya qof kasta oo muslima, ama ha yaraado ama ha weynaado, ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo, ama ha soomo ama yaanu soomin. qof kasta oo muslima oo bisha ramadaanna wax ka soo gaaray, bisha shawaal ee ciiduna ay nolol ugu dhalatay, in zakaatulfitriga laga bixiyo. waxaa la doonayaa maalinkaa ciidda inayna kula dhaafin. waxaa ka sii fiican intaan salaada ciidda la aadin inaad bixiso ay masaakiinta iyo dadkii mudnaa ama dadkii mas-uulka iyo wakiilka ka ahaa ay gaadho. kaasi waa waajib koowaad oo la iska doonayo, masaakiintana lagu caawinayo. qofka soomanaana wax badan oo ka dhacdhacay u kabaysa. xadiidka ibn cabaasna nabiga ku yihi sala allahu aleyh ali wasalam, zakaatulfitriga waxaa loo jeediyey tuhratan lisaa'imi min allagwi waarafath. qofka saa soomanaa inay ka dahirto, ka nadiifiso, ay ka dhaqdo wixii aan malaayac hadalkii aan macnaha lahayn iyo khaladaadkii iyo dembiyadii uu sameeyey. wa tucmatan lilmasaakiin, dadka masaakiinta aan waxba haysaninna inay cunto iyo quud u noqoto, oo ciidda maalinka iyo maalmaheedu waxay cunaan ay haystaanoo halka dadku faraxsan yahay iyagoo ayna gaajo xanuun ku haynin. zakaatulfitriga marka waxaa koowaadee la doonayo, axkaamteedana in la akhriyo oo la barto. wax cusubna ma ahane waa un axkaamtii sanad walba soo laalaabanaysay, mar walbana laga sheekeynayey, iyadoo maqal iyo muuqaal ahna qof walba luqadda uu yaqaano uu ku helayo. taasi waa waajibka koowaad oo waajib ah dadkii inay sameeyaan. ramadaanka hadduu dhammaado waajib labaad baa jira oo dadka qaarkii laga doonayo. wixii bisha ramadaan kaa tegay ee soon ahaa inaad soo qadaysaa lagaa doonayaa oo waajibku saaran. waajibku saaranna in la dedejiyuu u baahan yahay, waayo nafta iyo ajashu inta laguu soo jira cidna ma oga. maadaama laguu iman kara wakhti kasta, waajib dayn oo ku saaranna uu yahay, sida ugu degdeg badan inaad isaga guddaa lagaa rabaa. wixii sanadkan kaa tegey oo ramadaankan hadda gebagabadiisa aan joogna kaa tegey, ilaa ramadaanka kalaad haysataa. marka halkaa la joogo dad badan, gaar ahaan dumarku, sababo cudurdaar oo sharciga markay u afuraan, ama caadadan bilaah ha noqoto, ama inay mul tahay, inay uur leedahay, inay ilmo nuujinaysa ay u afurto, waa iska halmaamaan ramadaankii. markuu kala soo dhowaaday waxay keenaan su-aalo ah, kii kale a igu soo galay, soonkii horena waa laygu leeyahay. soonku wakhtigiisii markuu joogu yar adag yahay oo xiriir yahay, laakiin marka la qadaynayo waa la yar yarayn karaa. haddaan ka soo qaadna usbuuc inay bishii caadada gabadhu ku dhacday oo 7 maalmood lagu leeyahay, 7 maalmood oo 11 bilood in lagu soomo la rabo wey.
haddii 7 biloodoo ka mida bishiiba hal maalin ay soonto dee way qadayn kartaa. dad badanoon maalmo badan isku xidhi karin baa maalin marla-a soomi kara. haddii bilba lagu lahaana waa 10 biloodoo min 3 beri ah. waxaan rabaa guud ahaan dadka qadaha lagu leeyahay gaar ahaan gabdhaha muslimka ah inaanay dhayalsan oo fudaydsan ramadaankiiba hadduu baxo qadihii aynan meel iska dhigin oo halmaamin. hadhowna culimo iyo dad aan lagu wareerin ninkii horena waa laygu leeyahay kadambana waa igu soo galay gabadha iyadoo umul ah iyadoo uur leh baan leeyahay ama ilmo nuujinaysa 7 maalin waa soomi kartaa. 7 maalin haddaad soonto bishii waa 4 beri. haddaad 10 beriba maalin soontana bishii waa 3 beri. wakti aad qadaysaan waa la hayaa oo fudud dadka intiisa badan. marka qadaha waa waajib. hadday naftu sidaa ku tagta adoon gudinna aakhare lagu weydiin doono. taasina waa masalada labaadee dadku inay ka dardar yeelaan oo ay tixgelinteeda siiyaan oy xasuusnaadaan looga baahan yahay ramadaanku hadduu dhammaado. bisha ramadaan hadday dhammaato waxaa kaloo dadka laga doonayaa inay salaadii ciidda tukadaan. marka bisha la arko sunnadu waa takbiir baa bilaabanaysa, allahu akbar allahu akbar, ilaa salaada ciidda laga gaaro. wakhti go-anna ma laha, qaab gaar oo loo dhahana ma laha. midka aad u tiraahdaba insha allahu tacaala way gudaysaa. takbiirtaa sida loo qaadaya salaada ciidda marka la gaaraa lagu tukanayaa. waxaa sunnaa ciidan intaan salaada la gaarin salaada subax kadibba in afka wax lagu dhufto oo la afuro si loo kala duwo waagan baryey ee soonka ahaa iyo waaga baryey ee ciidda ah. garaan ciidan soonka laga ciidaya marka la gaaro. dabcan sanadkan bannaan haddaan la isugu tegi karin dadkeenna aaggan jooga ama dadka la duruufta ah ee xayiraaduhu ay jiraan guryaha ciidda lagu tukan karaa. kelina waa loo tukan karaa oo qofku keligii waa tukan karaa. koox iyo inta qoyska ana waa isla tukan karaan oo jamaaco way samaysan karaan. hadduu qofku keligii tukadana wax ka dambeeya salaada ciid oo khudba uma baahna, way cidu wacdiba ma laha. hadday dadku reerkii wada tukadaan ama dad goob shaqo wada jooga ay wada tukadaanna qof iyaga ka mida wacdi kooban inuu jeediyaa fiican oo khudbadii booskeedii gasha. salaada ciid waxaa loo tukanayaa waa 2 ragcadood. ragcadda koobaadi markaad xirateed allahu akbar dhahdo 7 jeer oo kalaad ku celinaysaa. allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar 7aad tirinaysaa. mushkilaad ma laha. haddii aad ka baqaysa tiradu inay kaa qasanto inaad markaa allahu akbar leedahay faraha ku tirisaay adoo gacmaha laabta ku haya allahu akbar markaad tirahdaba gacanta waad laabi kartaa. allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar 7 markaad dhammaysa iska sii daa. kadib faatixada la aqrinayaa, sabix isma rabbika alaclaa ama suuradihii kalea la aqrinayaa, waa la rukuucayaa, waa laga soo kacayaa. labadii sujuudood baa sidii salaaddii caadiga ahayd lala imanaya. kadib ragcaddii labaad baa loo soo istaagaya, allahu akbar baa la odhanayaa. markaad istaagto haddana 5 jeer oo kale baad ku celinaysaa allahu akbar. iyadana sidii oo kale faraha ku tirso si ayna tiradu kaaga khaldamin. kadibna faatixadaa la aqrinayaa, alhataaka xadiisul ghaashiyati baad ku xijisiinaysaa. kadibna 2 ragcadood saasaad ku dhammaysanaysaa. sidaasaa loo tukanaya. ama keligaa tuko ama xaafaddii jamaaco iyo meel shaqiya idinkoo dad kooxa tukada oo jamaaco ku tukada. haddii ay dhacdo inaad allahu akbartii halmaanto ood faatixada iska bilowdo ama qayb ka mida tiradu kaa qasanto, salaadaadu way ansixi oo dhibaato ma laha. salaadaadu waa ansax. sujuud sahwina uma baahna. inaad gadaal kala timaado sujuudu sahwi uma baahnid. iyadana waa salaaddii ciidda ahayd oo iyadana ama waajib aan dhahno ama waa sunno aan dhahne iyadana dadkii laga doonaya inay sameeyaan. waa qadiyadda saddexaad. waxa afraadee dadka bisha ramadaan hadday dhammaato laga doonayaay waa shawaalka inay soomaan. 6 maalmoodoo bisha shawaal ka mida bishan xigta bisha ramadaan inaad soonto wey.
lixdaa maalmood maalinka ciidda ah kuma jiro. maalinka ciidda lama soomi karo, lama ogola in la soomo. waxaa la rabaa in la soomo waa 6 maalmood oo ka dambaysa. sida ugu fiican waa in la dedejiyo oo nabiga calaih mar hadduuba yidhi man saama ramadaana ثuma atbacahu 6 min shawaal, raaciyo 6 shawaal ka mida. mar kastoo ay xigtaba raacinteedu way ka sii fiican tahay marka kale. si guudna ilaah wuxuu inu amray wixii khayra in loo degdego. wixii khayra in loo degdegana kitaabka qur-aanka iyo sunnaduba wayna fareen. fastabiqu lkhayraat. naftanna ajaal bay leedahay oo dhimasho intaad noolaanba damaanad ma haysatid. marka khayrka inaad dedejisaa wanaagsan, laakiin qasab maaha inay isku xigaan. 6 maalmood oo midba mar tahayna waa ka dhigi kartaa, 6 isku xigtana waa ka dhigi kartaa. qayb ka mida intaad israaciso isku xigaan, qaybta mida kale keli waad ka dhigi kartaa. adigaa khiyaarulo bishaa gudaheeda way asal ahaan waxa 6da lagaa rabo. sida fiicanna israacinta iyo dedejinta wey. waxaa kale 4 marka laga soo tago, si guud ahaan dadka dadaal baa faran. mar kastoo bisha ay dhammaatay iyo bisha ka dambaysa aan galno, cimrigeenna waxbaa go-aya, aakhare iyo geerina waan u sii dhowaanaynaa. bisha ramadaan hadday tagto sanad kadib bay soo noqon, laakiin innagu haddaan tagno soo noqon mayno. marka ninkii jooga un bay fursad u tahay. fursaddii camalka la sameeyey ee cibaadada badan lala yimid iyo khayrkii danbadana la sameeyey, saddexdaba aan ku dadaalno. kow, naftu khayrkii ay baratay ee la qabsatay in halkaa lagu hayo. naftuna hadba wixii lagu qasbe ee la baro bay la qabsataa. mid labaadna aynu ku dadaalno oo shaydaankii lasoo fasaxay ee dadaalkiisa laalaabaya markaynu ciidda gaarno inaan digtoonaano. ilaahay suu yidhi ina shayطaana lakum caduwan faاtakhiduuhu caduwa inamaa yadcuu xisbahu liyakuuna min asxaabi الsaciir. naar buu kugu inoogu yeedhayaa inaan digtoonaan dheeraada qabno oo dembiga iyo macsiyada iyo wixii xumaantada ahaa ee nafteennu ka go'day aan iska dayno. mid saddexaadna aynu ku dadaalla oo mar haddii ciidda la gaaray ilaahay cafiskiisana aan doonayno, innagana ciddaan wax ka tirsanayni aynu cafino. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa cibaadada inuu naga aqbalo, inta ka dambaysana khayraadkeeda na waafajiyo. intaasaan kelimaddeeda ku soo koobi lahaa. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.